الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عن wanaagsan daawada lamaantiin ba halkan waa telefishinka caalamiga ee Home Cable TV xaruntiisa magaalada Hargeysa daawadayaal dilhaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijkeena haladayga wadahan oo kala ka daawataan telefishinka caalamiga ee Home Cable TV anagoo hadba ku soo casuunaa siyaasiyiinta aqoonyahanka iyo waliba waxgaradka guud ahaanba bulshooyinka Soomaaliland toddobaadkan barnaamijka haladayga waxa marti ugu ah musharaxa madaxweynaha ee xisbiga cadaaladda ee daryeelka Wicid mudane Jamaal Cali Xuseen oo si xoog uga mahadnaqayay waqtigiisa qaaliga ugu horeeyay wal qayb qaato barnaamijkan haladay waxaana xaggan aan ku weydiin doonaa su'aalaad kala duwan oo la xiriira asaaskii xisbigan mucaaradka ah ee Wicid ee uu ku soo biiray halkii Faysal Cali Waraabe isku barteen iyo waliba waxyaabihii lagu heshiiyay iyo waxa xal u noqon kara xisbiga mucaaradka ee Wicid xaaladan haatan uu ku jiro marka hore Jamaal waxaan ku soo dhaweynayaa Home Cable TV iyo waliba barnaamijka haladay بسم الله الرحمن الرحيم مستر كراسي بعد هون كيبل تي في أدنى السلام عليكم أدبن كاجي قادني مدن مشرح بالمرك هوري إنتان سؤالات كلا جلين بروح فاهين كومنيكا سيسا فيصل على ورابي سيسكو براتين مركو جور سات كلانتان قرمي هيد مركي كحكتيات كود هذا الشيء حسبيها إنه قرمي بسم الله الرحمن الرحيم فيصل على ورابي إلا مدبوا واسنقان أنت وده وسياسة كتشري محاي هيدا inaan saaxiibnahay baa iska baray Faysal aad buu telefoonka iigu soo diri jiray inta badan oo ila socotin jiray kulba wararka Soomaaliland iyo arrimaha ay wax marayaan talooyinna way weydiin jiray oo markaan anigu bank ka shaqeynayaan wadanka jooga Ivory Coast la ilaa aan deganaa ilaa markii dambe dalka Tanzania aan soo degay waxa dhici jirtay marka uu Faysal ilawanin siyaasad ku jira caawimo u baahan oo sax dhaqaale iyo xaq talooyin ba wixii aan ka geysan karay kulba waan ka geysan jiray anigu aan xisbigiisa ka tirsanayn hatta xilligaas xisbiga cudaan ka tirsanayn xilliga aan taageeri jiray waliba xisbiga udub aan taageeri jiray ayaa haddana aan mar walba madaxda kale ee xisbiyada kaleeto soo dhaweyn jiray dhaqaalahaan hadii doonayso aan ku taageeri jiray haday noqonayso xisbiga maxay ahayd ucud iyo kulmiya labadaba xisbiga xaakinka xiriir fiican baa la lahaa oo daahir riyaale madaxweynaha daahir riyaale oo ku soo dhaweyn jiray markii aan joogay wadamadii kale Afrika aan deganaa laakiin iyagu de xisbi xaakinkii baa wax dhaqaalaha hadda noogama baahnay laakiin xisbi kulmiye iyo xisbiga ucudba labadaba waan xaq dhaqaalaha oo soo dhaweyn jiray oo ku taageeri jiray oo ku dhiiri gelin jiray in dimuqraadiyaddu ay dalka ka hirgasho oo ku wanaagsanaato ayaan markii ka qayb qaadan jiray marka halkaas horta markii ugu horeysay Faysal xiriir ku lahayn markii dambe anigu siyaasadda si toos soo galay xisbiga udub soo galayna maxay ahayd markii dambe adogeed xaaladii xisbiga udub iyo dhibaatooyinka ka dhacay kadib ayaa maalmaha kamid anigoo marka wali aan shaqada ka tagin laakiin xisbiga udub musharax ka ah oo tartankiisa hawlihiisa xaaladiisa ku jira iyo mudane maxay ahayd Faysal Cali Waraabe ila soo hadlay dibadda ila soo hadlay markaas uu yiri war arkayaa oo xisbiga udub dhibaato anaga qudayaduna caawimo u baahanahay hiil baan u baahanahay oo ucud oo markaa kala jabtay xisbigana oo aad u weeqimay oo markaa tartan ururana la gelay oo markaa urur ku soo haray ay Faysal la soo hadlay uu yiri warniyow halkan buu musharaxa doonaysid waan ka siinayna anagana nacaawi oo xisbigana la soo saar xisbigana wuxuu u baahan yahay aniguna maartay dhaqaalahaan hadii noqoto burburay hadii noqonayso maxay ahayd dadkiina iyo wax badan siyaasadda ku soo jiray iyo dhibaato badan oo iga soo gaadhay xisbigooda tartan cusubna waa la gelayaa oo raac galaya ilaa 15 markaa mariyay markaa Faysal isaga ninkii initiative-ka markii ugu horeysay talabadii ugu horeysay ninka qaatay ila soo xiriiray isagu igu yiri waan ku soo dhaweynaynaa bal noo kaalay runtii shukaansanayay markaa ila hadlayay laha warniyo aynu wax isku darsan markii dambe arinku markuu halka marinayo dhowr jeer baa markaa Dubai baan ku kulanay aniga iyo Faysal iyo Cali Guri maxay ahayd haddana wada hadallo ayaan markaana waxaan ku yiri warniyo talaan u baahanay fara badan inaan wadanka ku noqdo asxaabtaydii udub ila socotay la tashado odayadii iyo dadkii taageeriyay la tashado markaa balan wadankiina isugu nimaadno wadanka aan ku soo noqday halkaan imid ka wali shaqada kama tagay markaa xilligaas June bay ahayd 2012 adu wada hadallo kadib socda markii aan odayadii dhaqanka iyo dhalinyaradii wax karadkii la tashaday runtii shaka badan bay ka muujiyeen Faysal Cali Waraabe lahaayeen waxaan ka baqanaynaa in isbedel badan uu noqdo
midyahana aad bay uga socotay berigaasoo waxa la lahaa yaanu jamaal waxba ku darsan faysal laakiin anagu calaawada adagnay odayaduna waxay yidhahdeen war waxaan u baahannahay faysal cid garanti naga siisa ama faysal dee tiraahda maaragtay dee xadhigiisii baa loo baahan yahay oo dee odayaashiisi faysal odayaashiisu soo kaxaystay dhaqanka waan maqlayay maandhow isagoo interview bixinayo leh odayaashu aniga maxay ka qaadayaan salaadinta maxay ka qaadayaan waan soo kaxaysanaya salaadintaasi iyo odayaashaas oo xaaji cabdiwaraaba ugu horeeya waa raggii uu soo kaxaystay weeyaan faysal suldaan maxamed cabdilqaadir iyo xaaji cabdiwaraaba iyo odayaasha runtii sharafta leh ee wanaagsan ee beeshiisa ka tirsan waa raggii uu faysal soo kaxaystay ee nagu qancinayay yaa inaan faysal wax la gallo marka odayadii dhinacay ka socday waxgaradkii dhinacay ka socdeen waxay yidhaahdeen ilaa aan odayadaa aanu aragno oo ay heshiiska markhaati ka noqdaan wax ma dhacayaan oo ku taageeri kari mayno sababtaa faysal baan calaamad su-aal ay runtii xilligaasi saaray marka sidaasi markaa horta ay ku bilaabantay markay ku bilaabantayna waxaa dhacday in aanu intaan heshiiska aan la gaadhin oo aan publicly la tegin in guri magaalada Hargeysa ku yaala aan ku kulannay odayadii dhinaciisa ka socday iyo odayadii iyo aniga waxgaradkii dhinacayga ka socday aan isu keenay markhaati lala noqday xaaji cabdiwaraaba Soomaaliland ugu weyn oo markhaati u nooha maalinta uu fadhiyay waana weydiin kartaa isaga laftirkiisa suldaan maxamed cabdilqaadir yaa boqor raabi xildhibaan deeg rag waaweyn oo mug leh oo dhinaciisa ka socday ayaa meesha joogay dhinacayga kadaalig dad waaweyn baa joogay waana waxa la yidhi akhriya bal heshiiska ku heshiiseen heshiiskii baan akhrinay ha lagu duceeyaa la yidhi meesha waxaa ducadaa akhriyey xaaji cabdiwaraabe cabdiwaraabe ilaahay ka raalli ahaadee oday weyn oo sharaf leh ayaa halkaa kaftan badan ka geystay maxay ahayday markuu arrinku halkaa maray ayaa aan anaguna heshiiskii si sharci ah oo xisbiga ka dhignay markaa oo aan July 12keedii sida dadka muuqaalada iyo xafladahana ajaladahana ku jiraan YouTube iyo meel walba aan heshiis weyn oo ummadda Soomaaliland oo dhan markhaati ka tahay ayaan isugu nimid oo aan ku galnay hotel ambassador yaa oo dadkii dee joogay markhaatiyaasha ahaa cid walba joogto Soomaaliland caalamkuna oo dhan inuu daawanayay anagoo faysal iyo anigoo saxaxinay qodobada heshiiskana la akhriyay xisbiga uu cid horta marka xisbi maaha oo urur buu noqday xaaladiisa aad bay u kharibnayd xisbiga uu kala jabay inta badankiisina waxa gurtay oo uu degartay xisbiga wadan marka caawin ma u baahnay waxa u baahnay xisbi cid dardar gelisa urur buu noqday wuxuu la tartamayaa 15 urur marka horta xisbiga ucud ee engineer Faisal Cali Walaal bilaabay ya 10kiisii sanadood waxa ku ekaayeen 2012 urur buu isu bedelay markan waa xisbi cusub oo la soo saarayo labelkan siinayna waxa new kama aan bedelin xisbiga magaciisa officialka xisbiga ucud oo ku deyn sababta waxaan doonaynaa magaciisa inuu sii jiro legacy-giisa sii jiro heshiisyadeeda ka mid ahayd engineer Faisal Cali Walaal guddoominimadiisa aan u deynay isagana uu guddoomiye noo siinay laakiin xisbiga dhiga cusub lagu shubo musharaxiin u yeesho Faisal Cali Walaal waa lagu amaanay markaas dad badan baa u arkayay in siyaasadda wax ka bedelay inuu yahay nin dadka aan waxba ku dhigin inuu yahay inuu haneeyay inuu yahay laba jeer hore Faisal tijaabiyay oo doorasho galay labadii jeer hore kuma guuleysay marka Faisal waxa muhiimad ahayd oo maalinta khudbadiisa uu ka akhriyay uu yiri muhiimadu ma aha inaan anigu kursiga kaligii fuulo muhiimadu waxa weeyaan buu yiri sidoo hadaladiisa u dhigay war yeelay oo muuqaal muhiimadu waxa weeyaan in xisbiga aan ku soo tabcay dad uu ka soo baxo oo xukunka talada uu qabto oo mabaadiidii aan hayay anigu aan hayay dad kale oo fuliya ay jiraan waa hadaladiisii marka loo yimaado wixii aad ku heshiiseen adiga Faisal bal qodobo uga taaba bulshada waxa heshiiskana kamid ah bismillaahir rahmaanir way yeelan qodobada iyagu qoraal iyagu saxiixan iyagu muuqaalna way yeelan qodobada waxa kamid ah in intaan horta qodobada ku darin xeer 14 xeerka Soomaaliland shuruucda xisbiyada iyo ururada waxa ku yaala in xisbi ururadu ay isbahaysi gali karayaan oo iyagu hab isbahaysi ah ee marka xisbi noqon karayaan marka anagu garab ka soo gaay xisbigii udub ayaan dahay garabka iyaga iyo ucudi hore ayaa isku beeray new ucud ayaan markaa u bixinay isbahaysiga cusba
oo aan naanay soo dhignay xisbiga cidna magaciisa u deynay laakiin isbaahisiga levelka naga dambeeyo oo dadka doontaan xataa nimanka golaha deegaanka ay ku cararayeen wuxuu ahaa new ucud buu ahaa ama ucud cusub in Soomaaliya loo bedelo marka qodobada ku heshiinay waxa kamid ahaa in golaha dhexe 100 soo magacaabo Faysal iyo 100 anigu soo magacaabo koob iyo konton reserve-na uu noo noqdo oo hadhow dadka nagu soo biiriyay ayaan gallo waxa kamid ahaa xisbiga waxa loo kala jaray laba hoggaanka xisbiga iyo musharaxiinta hoggaanka xisbigu iyaga xisbiga wadaya waxa weeye waa gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenada iyo xogeyaha guud ayaa la dhahaa hoggaanka xisbiga musharaxiinta doorashada ugu tartamaysana waa gooni xisbigu labada waaweyn ee garab ay kala yeeshay hoggaanka xisbiga waxa hogaaminaya injineer Faysal Cali Waraabe musharaxiintiina ana markaa hormood oo ah marka hoggaanka xisbiga markaa dad baan ku darsanay anaga oo laba position oo ka maqnaa oo xisbigu aan markaa wali buuxin ay noqoto markaa in anagu soo magacaano anagu aan buuxin marka labadii baana markaa buuxiyay mid wuxuu ahaa gudoomiyaha saddexaad oo aan magacaabay markaa oo xisbiguna uu ansixiyay Mujaahid Cali Guray iyo xogeyaha guud oo aan markaa xilligaas soo magacaabay Axmed Yuusuf Ismaaciil Axmed Kayse oo markaa wasiir ku-xigeenka ah ee arrimaha dibadda markaa garabkii iga la yimid udub kamid ah marka sidaasaan horta aanu heshiiskayga ahaa waxa kaloo kamid ahayd in musharaxa rasmiga ah ee madaxweynaha ugu tartamay shaqada madaxweynuhu aan anigu noqdo aniguna aan soo magacaabo ninka in noqon doona ku-xigeenka aan anigu soo magacaaban doono ayay dee ahayd sidan dee marta ilaa marka waa urur waxa la doonayaa in markaa dee xisbi uu noqdo oo xisbi sidii lagu galo inkastoo weli xisbi weli license-kiisii weli sidii uu haysto ilaa dee laakiin waa xisbi markaa waayi doona haddii aanu ku guulaysan tartanka xisbinimada marka anigu isla maalintii waxaan magacaabay isla goobtiiba heshiisku ka dhacayba musharaxa madaxweynaha waan magacaabay laba xubnood oo kalena waan magacaabay oo kamid ahaa xogeyaha guud iyo nin kale xogeyaha aan magacaabay marka sidaasan horta aanu isbahaysigii ku bilownay ucud isbahaysiga aan ku bilownay anaga wax lacaga iyo waxba toona maanaan kala qaybsan oo dee lacag iyo waxba tan laguma doonin laakiin xisbiga lacag u baahnaa xisbiga dhaqaale u baahnaa lagu dhiso ood garanaysaa doorasho la gelayo waxa weeye dhaqaale aad u fara badan bay u baahantay marka uu Faysal dee wada hadlaynay Faysal wuxuu yiri wartaan u dhaqaale ma hayo zero baan ka taaganay hatta xaflad daimka la qabanayo aan waxba idin kala bixin karin maxay ahaydey dee waana xisbigana dhista dhaqaalihiisana bixiya haddaad doonaysaan inaad musharaxiin ka noqotaan rasmi horta xisbiga soo saarta way idinkaas dee shaqaysta saasuu nagu yidhi gudoomiyuhu marka annaga xoog iyo maal iyo muruqba dee gelinay oo ilaa galbeed ilaa bari ragga dee gooshayey istegayey dee annaga aan ahayn dee gudoomiyaha muu ahayn dadka musharaxiinta dadka golaha deegaanka ku tartamayey xisbiga nin walba annaga gurigiisa ku garaacno annagaa keenay annaga magacayga iyo karaamadayda sharafteyda ku yimid qofku ninka golaha deegaanka iska sharaxay marka maxay isbedelay markii dambe wixii nin maxaa bedelay haddaba markaa hadda processka aan kuu galay wixii markaan ku heshiinay waxay doonaysaa wixii in la sharciyeeyo haddana sharcida dalka haddii la mariyo horta markii hore waxaanu gallay dadaal aada ayaanu gallay waxaan bal horta intaanan sharciyo xubtoon aanan ku warwareegin bal horta dadka yaa laynaga kala boobin sababtaa markaa waanu dambeynay annagu ururada kale oo dhow naga horreeyeen sanad iyo bay qaarkood kaambeynka ku jireen dadkii waa la kala maartay dadkii musharaxiintii dee soo baxaysa annaga dad baa xataa nooga soo baxay ururo kaleeto annaga daraadday noogu yimid xisbiga si ay isaga sharaxaan dee noogu yimid annaga dartay marka musharaxiintii baanu ku dadaalay inaanu galbeed iyo bari iyo meel walba aan tagno anigu ilaa laascaanood baan tegey ceerigaa baan tegey meel aanan dalka tegin ma jirto oo musharaxiinta anaa soo xilay mid walba keenayo oo halkiisa fadhiisinaya gudoomiyuhu doorashadaasi dee mar uu burcan loo gaarin mooyaan xataa gabiil muu gaarin hargeysu inta badan fadhi dadka shaqaynaya dee wareegayay inta badan annagu bay ahayd intayada wareegaynay xilligaa cabdirashiid shaqada kama iman laakiin cabdirashiid waa dadaalay oo isagu kolba wuxuu markuu yimaado musharaxiinta gobolkiisana uu soo xolay wixii dhaqaale ku baxaya galbeedna isagaa culayska naga qaaday oo hadday noqonayso boorame iyo salli ay noqonaysaa waad ogtoo doorasho marka la gelayo maalinta qura la isu soo baxo ayaa maalintaa quraata $50,000 baa naga bixi jiray one day keliyaata oo sheefkayga ka bixinay marka waxaa dhacday markii aanu musharaxiintii isu wada keenay ayaa waxaa dhacday xisbigii kulmihe
ayaa wuxuu yiri musharaxiinta iyada fiiga waan ka bixinayna musharax kasta oo golaha deegaanka almost 1 milyan iyo dheeraad baa laga bixinaya ya intaasoo musharax waa 1 iyo dheeraad musharax lacagtoodii fiigoodii musharaxiinta waxay wadadaan xisbiga aan naga bixin karay ururka naga bixin karay waxba ma tiidin way nagu kaliftay inaan boqodkayga ka bixino ya lacag ilaa $180,000 gaaraya ma bixinay isla markii fiigii musharaxiinta anaga bixinay jeebkayga ka bixinay Faysal shilin kuma darsan سمعت فهمي مشرحينتنا أنا كأني هاوش أنا جاودنا وكشقيني سقوا قدومي واحد ونقرأ عصنا رنتي أو لفتر كيسو مو فلانين لفتر كيسو مرة قارئ صنع دور شيء راكي حلي يري وأنا الرهيبي يا حسب بيجي مصاب بحيو وكي ميري هيدا عضها كعب لكن أنا أقول كل شيء وين إنه ولد دالين مرة والله إلهي إنه ولا كاشين مرة واحد عادي مرة أرنب الصداع والصعدة سيدي لا تنكي أكتوبر 2012 ayaa golihii dhexe xisbiga u cud ay sii yimaadeen kalfadhigoodii shanaad oo la mid ah kalfadhigii shanaad ee xisbiga kulmiye oo hadda qabsaday doorasho lagu galay anaga musharaxiin ka hayn cid kale oo la tartamay jirin aniga Cabdirashiid Xasan Mataan cid soo sharaxdo tiraan la tartamayna nimanka odayaasha damay jirin sidii Muuse Bixiba aan cid ula soo tartamayna markii aan cid soo sharaxda aan jirin wana loo codeeyay gacan taag bana loogu codeeyay sida shuruucda waafaqsanba sidii markaa loogu codeeyay حسب كلمية وأنا لو قد دورتي مشرحين ترسم مجاهد حسب يقعد بان نقطة قول إحنا لو قد دورتي قول حد حمر كنا لو قد دورتينا قدومي هو ورق يكل فرد جاء يبقى عمودك صوب حيوة ورق دي المالتي دود ميديا تسي أي صاري ساكو صحيح سقوله وعمودك صوب حيوة كل فرد جاء شراد حسب يقعد وحلو قد دورتي ورتمر كروح لجوا أنسي هشيس كل جاري يلا بذكر الجاري إلا وين قول حد هو أنسي si uu sharci u noqdo heshiiskaasi oo ah in wax walba aan kala qaybsano oo marka labaad ay musharaxiinta rasmiga ah xisbiga aan nahay isna uu gudoomiye xisbiga u yahay oo marka saddexaad in ragii kale ee hoggaanka xisbiga kamid noqonayay Mujaahid Cali Gure iyo Axmed Kaysi laftirkooda lagu ansixiyay kalfadhigaas iyagoo muuqaal u yaala qoraalkii uu qoray wuxuu u daray gudoomiyuhu komishanka qaranka wuxuu u daray xeerlaalayaha guud wuxuu u daray gudida diiwaangelinta كل جود وذي يلان قرالتي وشرعية هاي وحشرعي عاصر مركان ما يسنى ما دون دور الشديد مركان الله ودلالي مركان دلالي دور الشديد إلى هو النصوص صار مر الله علي مركي دور الشديد عن كل صباحنا يا أيها هرت إسبدل الموضع ونكي قدومي حافظ على ورموكي سو مركان هرت الدفرات بالعالم حكوا درس الحزب حكان كانت السمايسة لو تشيد ميرا لكن ولم يدفر كرينين ما ندفرين حسبي قد وحى عنو محايا دينا المشرحين تنهاي يو أنا دلغات بانو يالني صوبت حسبي قعد ما دام هوجانك مركي ورانو خلق قايبيني هوجانك حسبي يو مشرحين تا حسبي عدة هيد إنه لسه ويسقوية بدومية حسبي عدة وبهن لقى حسابته هو يسق ما اللي يدعى عارك يسقوا لها وين لسقينا يا ودلقينا يا مركا خلاف كني مشرح قرم مصباح وعنو خلاف كين تنلاقي قرم مصباح محاس يدين كترينتين خلاف كنا هذا ريمكو بوصف عن أول بور شكسناي أول بحم حمت ميلها وكم مقلين قدوميه الضبضة يدو كهلي شري ضبضة إنه إنه سوي شيء شري وأنا اللي يابي شري إنه قدوميه حسبك هو هاي هذا أدقوا إنه كل صوب إنه الضبضة كاحن تو أدقوا مصح سبحان الله هذا ده منافق ما بدنا يكمل وقت لكن واحد عضو عن كوهيني وده إيفيدنس ده ميتشر waxaan is rasmi u bilaabay markuu cadaystay midiyaha ka cadaystay wala waraysiga adigu aad ka qaaday maalintii hore imika ma ahay maalintii hore tuu xagga aad Soomaaliya tagay iyo Djibouti tagay wakiili toos uu yiri adiguba sad u joogtay madaxweyne Sinaayo oo Nelson Mandela cidu inaga tago ayaynu dhisaynaa buuli isagoo u jeeda gudoomiyaha marka musharaxa xisbiga kulmiye ninkii xidhmaaya xisbiga mucaaradka ka ahaa gudoomiyaha هيدا المشرحين تيجي لسه ولسه حسب كلامه وعطيستي دي تي في وكي حكلوه يدي وادي حدي مشرحين تيجي أنا دلك أنا نقرأنا هاي ندلك إيجيان هاي وكيلي مشرحين تيجي هدي أنا أقل منه وحنا أورنا إياه وراء عضينا كواس كوا كلا عضي دومت سبحان الله لما أرجع من دومي حسب كاه
oo xisbigiisii yiraahda xisbigii gudoomiyaha ka ahaa ilaa musharaxiintoodii ma taageeriyo dad kale taageerada marka inuu kuwa kale iskaga biiro ayaa la qaato dadka kale xisbiga kale u daayo hawshooda iska wataan marka aniga waxaan taa markuu yidhina waxaan sameynay markii aanu halkan nimid ee hadalla la isu yarashay jawaabay taageerayaashii wareer ay galeen aniga way u kaliftay markaa inaan media ka hadlo anigu mar aanu gudoomiyay u kalifay aan 3 jeer malaha gudoomiyaha gabigaygu aanu jawaabay 3 jeer oo ay ugu kaliftay ayahay intaasoo jeer buu media ka hadlay intaasoo jeer buu wax ka yiri ya wax allaaliyo mar walba ixtiraam baan siinay laakiin mararkaas waxa igu kalifayay xisbiga khalkhal galaya taageerayaashii oo yaaba inaan cadeeyo u kala rifay karay mas'uuliyad bay ka saaran inka dhammaan musharaxa xisbiga ugu tartamayay baan ahay marka intii hore anagu waxaan moodaynay gudoomiyuhu inay ama uu darjiilayo ama carqalad ka tahay laakiin intii dambe waxa noo cadaatay oo isaguna cadaystay waa ka yiri sad maqashay maxaaniga iga mamnuucayna tartan xilligii lama joogo watii la heshiiyey marka waxaan aragnay damac waalan oo marka misaga damac soo wadayo doonay inuu sharaxo Faisal ma cid kale uu doonay inuu sharaxo idinku maxaa diideen markii dambe anagu waxaanu diidnay hadallada delqaafka oo saxaafadda marinayo imka waxa kamid ah hadaladan diidna kamid ah tartan baa la galaya xisbi kan kale la galay xisbi doorasho soo galo tartan lagu soo galay si tartan dib loogu gaca already balka waran imka Muuse Biixi iyo groupka dela doortay kulmiye oo haddana la ilaa tartan dambaa loo qabanaya ya miyana qalalaasa keenin marka idinku tartan oo dhan baad diidantiin leedin la galo maadaama aad leedihiin shirweyne shanaad bana lagu doortaa anagu haddii qof la doorto oo tartan galo oo doorasho uu galo sidee buu doorasho kala dib u galiyay sharcigii bay baalmarsan tahay ee ka gudoomiye Faisal waraabo sharci buu ku joogaa 5 sanadood baa la doortay shirweynihii wax lagu doortay 2012 soo 5 sanadood dib u joogaya Soomaa miyaan oran karayaa tartan baa la galaya haddaan ilaahdo soo dib sharcigii baalman maayo musharaxiintuna gola dhaxal lagu doortaa gola dhixi hadii lagu doortay ilaa ay doorasho ka galayaan adeer hadii doorashada ku waayaan mooyaane hadii la yiraahdo hadan doorasho kale lagu qabanaya damiyana waa leeyahay nidaamkii sharcigii iyo dastuurkii iyo kala dambeyntii wixii maanay dhaawacay waxaas anu waxaan diidaynaa anu sharcigan ku taageernay war wax sharcigii aan meesha ku nimid doo carqaladeynaya dooni mayno sida isaga sharcigii aan ugu warka idinku ma isku daydeen inaad balinta isu timaadaan dadkiina wax idinka dhaxeeyay gudoomiyuhu kamid yahay adigu aad kamid tahay xisbiga intiisa kale kamid tahay inaad isku timaadaan bala suuqan cisaan wixii sharciyeedii iyo dhexdiina ahaa ma isku daydeen waan taqnayba mar laali markuu soo noqday tala ambassador baan ugu yeernay waan aniga Cabdilshaah Xasan Matan 3 shir baan la galnay 3 qodob baan soo hordhigay 3 qodob ay ka boodo nagu soo tuuray soo akhriinba mid wuxuu ahaa gudoomiye horta marka hore in dadka laga raali gelisid ya hadalladii aad saxaafadda marisay wadageedo reer Boorama hadallo saxaafadda u mariyay anagu xaalkiisa laakiin xaalka anigu muhiim ma aha waa in isagu gudoomiyihii weeyaan isagu ka hadla ayaa ugu muhiimsan waxaan hadalka ka hortayna delqaafka hadalka dadka ka raali gelisid baa horta muhiim waxa kale oo muhiim ah nidhi in dadkii shaki baad geliso waxa xisbiga kala codeynaa ya inaad tusto dadka in kalsooni aad ku qabto xisbigaaga dadkii aad gudoomiye tood dhisay ya heshiisyadeenii xisbiga aynu wada gaarnay in hirgelino oo maxaa kamid ah waxa kamid ah in boqolkii golaha dhexe loo kala qaybsanay anagu in badan baanu xuraan sameynay kumanaan degdegay inaan golahayga dhexe qaybtaydii soo buuxsano laakiin waan soo dhameystirnay golahay boqolkayga golaha dhexe iyo gudadeedii fulintaba anagu isagoo dhameystira ayaan u geynay gudida maartay diiwaan gelinta ururada siyaasadda aan u geynay sida xaq ugu lahayn ee aan heshiis ku gaarnay isagana koobi baan siinay maalin waxa maqlay isagoo leh xisbiga waxba kuma soo darsano ma geenin oo 6 qof iyo balaayo waxbay keenay war xisbiga wax badan ku tarnay boqol qof baa hor yaallay isaga uu og yahay inuu sidaa u hadla maahin gudoomiye 25 qof maartay gudida fulinta ayaa hor yaalla oo qaybtayadii xisbiga boqolkiiba 90 qurbaha intuu ka dhisan yahay anaga soo dhisnay gobolada xisbiga dad si u eegtid Boorama Gabiiley Berbera Burco anaga furnay ilaa hadda anaga lacagtii kureenkoodii wuxuu anaga bixinay xisbiga anaga wali jeefkay ka bixin xisbiga waxa anaga bixin mooyaan waxa naga ma soo galin wax Allah wax naga soo galin halka gudoomiyihiisa uu ka faa'iiday laftirkiisa xisbiga mar la markuu soo baxay $10,000 baa ay xukuumadda ay dawladdu ay siisaa xisbiga oo loogu talagalay in gobolada lagu dhiso
gobollo laguma dhisay xafiiska maxay ahayd ku yaala maxay ahayd xarunta dhexe inuu gudoomiyaha ka bixiyay inta yar shaqaalaha xisaab cilmi uu soo celin maanaan weydiin ninka iska qaadanaya isagoo ah sidoo doonana yeelayay kolba markuu doonana madaxtooyada gelayay markuu doonana ka soo baxay dadsan xisbi lagu noqon kara maayo maantana waxa uu bilaabay inuu yiraahdo damac isagii soo galo yiraahdo sidaan anagu day ognahay in isagii dabada laga soo riixay isagoo cadaystay in dabada laga soo riixay isagoo doonaya marka umada hor yimaado marka dhowr jeer wad ku celisay hadalka maxaad ku cadeynaysaa marka in isaga xukuumaddu dabada ka wado oo isagu soo wado la doonayo inuu san sameeyo damaciisa ka sako damaciisa ka sako waxaan ognahay heshiisyada iyo xukuumadda heshiisyada qarsoodiga uu la galo hadaladiisana uu ku hadlayo oo isagu saxaafadda ka leeyahay kaas cadeyn kugu filan maada cadeyn kala u baahan soo kan kule madaxweynuhu waa Nelson Mandela xisbiga naga tagay dhisayna gudoomiye xisbiga weeye isagii baa hadalkiisa kule ma wax kala u baahan tahay anagu waxaan u aragnaa in kala jab xukuumadda iyo burbur ay doonayso in la damacsato xisbiga mucaaradka ay u aragtay baqdina laga qaba anaga dartii yaa ayana lagu soo basbaasaynay ninkii gudoomiyaha noo ah oo la doonayaa in xisbigii lagu dhaawaco lagu burburiyo isagana damca waaliye la geliyay ee dalka waxa ka dhacay fawda ka dhacday shuruucdii dalka oo dhan baa lagu tuntay wax kasta waa la sameeyay oo suurtagal oo suurtagal shacabkiina kama kicin marka wax kasta la sameeyay markii dambe xaaba la yidhi baa nimankii musharaxiinta ah ee 3 sanadood musharaxiinta lagu yeeray tacabka badan ka galay loo doortay meesha hadii la doonayo iyaga laftirkooda meesha ka tuuri karay oo waxyaalo dalka fawda ku keenaya oo dhibaato ku keenaya shacabkana kicinaya dimuqraadiyadda Soomaaliland ee ku soo caalamaalay dhaawacaya taas waxay keenaysaa in aan doorashada dambaba dalka aanay ka gelin oo haddii xisbigii kale la dhaawaco aanay dhibaato aan leeyahay marka bal markaynu nimaadno xaaladdan xisbiga uu ku jiro Faysal nacbu taagay ana nacba taagantay saygu maqaala ama adigu horaad u sheegtayba in laba waanwaaneed jiraan oo mid dhaqanka iyo mid xisbiga dhexdiisa labadaba ay socdaan halkay marayaan waanahaas inay socdaan way wali processka socdaan isagana waa kii iska dhoofay tagay maxay ahayd maartay dhoofay isagana waa la sugayaa oo ilaa isagoo horta isna yimaado laakiin waa u samarnay anagu in badan baan soo samarnay laakiin Faysal isagu wuxuu aaminsan yahay inaanay siyaasadda iyo dhaqanku inay kala fog yihiin oo aanay siyaasadiinta iyo madax dhaqameedkiisu aanay soo gali karin xisbigiisa arintaas sidoo maxaa horta xisbigiisa ma xisbigu isagu leeyahay ma Faysal mar walba xisbigayga aniga wasiisu sidoo yeeday ma Faysal ma laha Faysal waa gudoomiye ka yahay xisbigan ya intuu gashadayna in ka 110 laabkeed anaga gashanay xisbiga tan noqon socodiya noqonayso yaday noqonayso maalba Faysal xisbigii uu isagu aasaasay 2012 uu dhamaaday kan niicid baa la yiraahdaa xisbigan waan la leenahay Faysal soo ma fahmay horta inuu taa ku biicay weeyaan oo gaado aanu kaga dhigin aan xisbigayga qofkan inuu sidaa u hadla ma ahan gudoomiye xisbi qaran oo la wada leeyahay weeyaan ummadda Soomaaliland oo dhan baa leh xildhibaanadan golaha deegaanka soo baxay 90% anaga keena karaamadeedu ku keen waa niman dadaalay xisbiga rag ugu badan wax kula waayaga weeyaan xildhibaankii soo baxay kii dhacay rag ba guryahoodii u iibiyay 10 jeer nin qoro musharax ayaa Faysal kaga wax tar badnaa xisbiga hadii wax tar noqonayso marka dhaqankan uu leeyahay Faysal isaga odayaasha soo kaxaystay maalintii ugu horeysay wuxuu galay wuxuu xaaji Cabdi Waraabi soo kaxaysanayay Sultaan Maxamed Cabdi Qaadir iyo rag kale isagoo aamin weynay Faysal xilligaas odayaalba marxaati ay yimid sharci baan marnay samaad fahmay sharciina waa noo yaala halkan oo sugayna marka hore batan suluuca baan ku dayaynaa odayaasha dadkii loo marxaatiga ahaa ay joogaan haddii taasi shaqeyn weyda sharciga ma marka dambe la isugu dambeynaya sharciga la daal isla marnay runtiina waa waxa uu tahay isagana sharaf dar in mar labaad isagoo gudoomiye ah haddana maxkamad uu geeyay xisbigii taariikh xumana waa u tahay isaga wax u wanaagsan maaha sababta shacabka Soomaaliland waxay arkayaan wariyaa qaldan mar walba marka hore cireen ogeyn iyo groupkii kale oo maartay Faysal la galay war Faysal waxa ay dadka hore u diideen baan ugu ogolaan oo waa maxay waxaas Faysal wuxuu ogolaa in cireeyo ay musharaxiin noqdaan oo isagoo gudoomiye u ahaado way diideen iyo gudoomiyaha iyo labada iska soo wareejiyay ku yiraahdo waxaan ognahay haddana inuu Faysal Xasan Ciise Jaamac iyo qoladii intaan xaq soor noqon oo dana dhiil doona inuu la galo oo yiri gudoomiyaha ayaan qaatay idinkuna musharax noqda iyaguna waa ka diideen Faysal
qolada qura oo ogolaatay annaga ahayd oo ogolaanay xilligaa aan u tagnay Faysal de inuu gartaabay ahayd rag wax la galay baan qowlku waa wax weyn weeyaan diinteena ay ku qoran tahay loo jeer baan arkay isagoo waxaan la kala saxaday ya kitaab quraana war quraankii ku dhigantay oo ilaahay kaga hadlay uu yiri kuwa qowlka fulin waaya waa munaafiqiin uu yiri oo quraanka kaga hadlay ilaahay baa kaga hadlay waa Ciise toos rasuulka waa maalintii sheegay markii uu la galay heshiiskii gaalada oo la galay rasuulku heshiiskaas oo ay kamid ahayd in ragga muslimiinta dadka gaalada ee soo muslima in rasuulku dib ugu celiyo gaaladii Ciise toos rasuulku isagoo heshiiskii ixtiraamaya ayaa dadkii soo muslimay u dib u celiyay وهالك وهشيسك دينتين وكتها جنتها يقولك فيصل سجود بكتالة أنتوا كذا الله عارف أهل الدين ما أنت وحنا كهلا وحان سجن وناكسين كرامة سنة وناكسين ضد سومال لان وناقش علنا أنا وناكسين الطفرات على هالكلام زوج تاجو رجي أنا وهي لني ولبع حسب وكعبني ولا حكومة ده يجو ورئيس وحسب يجو برئيس رجي أنا وهي لني ما أنت سجد إنه جسوا هي لني هذا سنة لو سو أديك سنة حقه أولكن لو جود لها ونلدس لها وإحنا نلدس لها. وانقرت مدن شمال. هشيس كد وضع قشين. فيصل. مدة سنتهت ما واحد مدة سعيد مركز دور الشق قشين تحس بجاسي المدة ذكر ما تي ما إلا أنت تقول لي سنة يسيه دور الشو مدة بركوه هشيسين فيصل انتهى. أجدا حسب وده terms بولي إما كمركز فيصل ده وده مهان لو طورنا عايو ده شن سنة ضد بعد بس سما شروينا إلا شن سنة ضد بوحيستا شن تاس سنة ضد ده يسقى بدومية كا ده هذا دور الشكل على سمين يسقى كوقف صدق ده ومت سبحان الله شرعي والجميلي أنا جمر كان الله دورنا إياه ده كل ده حنا لو صوت دورت ولا هذا حنا لو دورت إلا أنت دور الشكل قليل ده وحويا دور الشكل ده سمين كلام شد دور الشكل من ناقل لكن مر كان دور الشكل ده الله أما أنا كوجول سنة أما يعني أنا كوجول سنة ده ولا ما أتمركها مرة ما أورن كرمينه ولي جماعة أنا خورتكوا هيسنا أنا وسافر دودي مين أنا مرة أول من هنا أنا قام مشارحين توا هيسنا لكن ترم كان صوت صعدة كل ده حناس نطورتي شرعي وحيجو الشرعي يروح ده نسي ثم ده أنا ولا أنا كذا مثل كلاته حاك يعني 6 سنوات بيسوي قدوميه أيوة الله مشارحين تاي عالم كان قيمي وإنما العصب وإنما القوية هنا أفكيس الله هيا أفكيس واحد الله هيا أنا وحنا حسب وقرأت قولي يصير حياة شرويني يصير ما يصير سجى في كيس لقى هيا أنا جماعة هروج حظي حتى أنا ما أنت أفكر أنكو حظي تو حوي نمو يبات واحد سبحان الله ويقف كوينه دوحون قاعد كيستا وحي والشرعي سجى عامد يقول هذا حسوا صار اللي مكاسان دورنا يقول ده فيصل سجى عنده يتاجي لفت الكيس دور شيء يقول هذا عنده يتاجي سوية دور شيء ده ما تبي اللي يقول يا محيط وحنو أركانه أنا وعرقل يوريه يقول هالك اللي قصوا بشكراني أنا وعرقنا ولقينا عالم كلام عرقنا حسبي قدومية كائن حسبي بيسوي سير مش على هذا مو يعني حسبي عرقلة ديا ودبعتية مركز حلك حسبي محن غني أنا لعبة هايسنا لعبة تاجي حلك حسبي محن غني حلك حسبي ودوح نغني يعني شروع دي حسبي يوحي ده شروع ده شرعيا ده لو خلبه سمعت فهم أنا ولي وأنا يو كل شيء جياد أنا محكمة يو شروع ده ولي ما إسلامنا قال إنه always وحن تراجعين يعني الحزب يقول عاوح جاري وأن ده الإسلام قال إنه ملحظ يا وحن سوفت أنا وحنو كين إنه حيا قضياش وحنا جو جاي مالتي أنا بخلص سحني لما خاطياش النوع حاج عبد الوهاب وجورية سلطان محمد عبد القادر وجورية يا قضياشي بندان والله بربر لأني كان مرخاتي نوع هاي هشيسكي سومالنا ما مرخاتي نوع هاي يضم مقالة نوع طلعي سووا حصيحي في سلواني كمان أنت أنا وحكي سحني أفكي سكيري ما أنت سومالي اللي نفرس كله قدقو وشمال على الحسين كون أحسن متشو سكيري أنا وما نعرف توقف كبلاد في نسبة بدل معها أو قلبه أو دوحلين أو حشروع ذاك الدول هنركي ما أنت لو يسوي كلا حظ لي مر له وشمال وبشرح مر له ولا لا ترتمية حال يقول ترتمي ده أوري يحيى أن قولها دعيسة أنت ترتكي هران وسوق قلبه ترتكي لو ما قلني حاول يقول ترتمي يا إلا إنه وأنا أقول يمكن لا هذا مسبح هذا أنت بالله لا ترتم وحويا مي يلي عندك مي يلي شرع ممنوع وقليه war haddii mar u tartan dhaco ninku ilaa u tartanka kale oo de kala mooyaan
waxa dhacaya meesha ma jira anigu waxa u arkaa un gardarro garab inay tahay xukuumadda Soomaaliland ayna waxa ka dambayso xisbiga kulmiye waliba gaar ah oo fawdadan xisbiga uu ku wada iyo burburkan uu ku wada laakiin waxaan u sheegayaa in iyagu ka caanamaan iyaga inay galaafan doonto oo uga dari doonto waxaan la ilaahay baa gacanta ku haya oo waxaan leeyahay anaga hadduu ilaahay noo qorin waan heli haddaanu ilaahay noo qorin heli mayno anagu waxba khasbi mayno anagu waxaan nahay qolada quraatay ku ducaysatay tiraahda war hadduu ilaahay kursigan uu khayr noo leeyahay anaga dalkana uu khayr u leeyahay dadka ilaahay noo guuli haddaanu labada mid khayr anagana khayr noo lahayn dalkana khayr noo lahayn ilaahay naga hayo qolooyinka kale iyagu waxay ku ducaystaan shar iyo khayr toona waa inaan baalka fuulnaa anagu marka waxaan leeyahay anagu gudoomiyaha anagu dhibaato uma haysano wax personal isku haysanaa anagu ma jirto war waxaan leenahay shuruucdii aan ku heshiinay ya faysa aan waxaan leenahay waxbaynu ku heshiinay process baynu marayna shuruuca wixii barashadkii shuruucdii aan marayna shuruucdii ku tumanay xisbiga iyo taqarankaba ayaan leenahay haddii kale signal buu u dirayaa in dalku uu fawdo noqonayo isaguna waxaad moodaa in meel laga soo taabtay ila faysal markii hore waxaa mu oran jirin 3 sanadood buu musharaxiintayda lahaa imika maxaa keenay arrinka waan gartay saaxiibka wakiis asilay Cabdirashiid Xasan Mataan mar dambe wixii silsiladiisa ka dambeysay ma wada hadashandaas wada hadashan maxaa istiraadeen Cabdirashiid maana wada hadal runtii igala mutashan aniga silsiladiisa iimu sheegin aniga habeenkii ka horeeyay intaan soo casina aroorti ya 12 habeenimo soo ka dambeysay oo iiga tagay uga hawlahan ku jirnay xaaladan ku jirnay laakiin soo qanac buu muujiyay markiiba aanu qanac maan muujiyo waxna laga maqal dadkana laga maqal xaaladahana laga maqal dalka waxaan doonaynaa in madaxweynaha ka noqono xaalada ka adagta ee nala soo darsaysa dhabar adeeg bay doonaysaa saaxiibkay waxaan jeclaan inuu la joogo inuu iska taga ma ahaan aayar waliba kaaga daranada inuu igala tashado hadduu doonayo inuu iska tago ayaan ka jeclaa oo ii sheegay waliba warqadda ii soo gudbiyo si official ah ilaa aniga magacaabay oo anigu ila ahaa maartay musharax waan ka jeclaa inuu sidii caadiyan ee professional ka ahayd oo maro oo ila yimaado laakiin inuu iga yar degdeg ma jeclay waana fahmi karaa isaga dhibaatooyinka kumana eedeyn maayo waxa uu ka hadlayna waa run weeye waxa uu ka hadlay ee uu ka cawday waa run weeye laakiin ninka hogaamiyaha waxa laga doonayaa xaaladaha adag laftirkeeda inuu dhabar adeego istaago oo yiraahdo waan ka baxaynaa ilaa all the way baan soconaynaa laakiin lama ku hid garayo nolosha intii daban kama naan wada hadal maxay ahayd isaga ixtiraam badan baan u hayaa Cabdirashiid Xasan Mataan wax badan buu xisbiga gashay ya in laga dafiro maaha deelqaafna way ahayd runtii hadaladii loo mariyay saxaafadda gudoomiyuhu mariyay oo ka dhigay martiya Cabdirashiid wax badan buu gashay xisbiga martina kuma wahay isaga xisbiga galbeed oo dhan codka nooga keenay isaga xoolaha ku baxayay iyo hantida ku baxaysay isaga bixiyay jeebkiisa ka bixiyay ya intuu isagu taray cid kale ma taray marka in la yiraahdo martibu ku ah xisbiga ma ahayn runtii qofka milkiisa sharaftiisa la siiya marka uu ka tagayo hatta ma aha inaad hataa si xagagatid qofka hadduu credit leeyahay creditkiisa waa inaad siisaa anigu dad badan oo xisbiga ka tirsan creditkoodii baan wada hayaa u tirsan faadima Saciid ugu horeyso Axmed Kayse uu ku jiray way soo dadaaleen runtii waxaas dadkaas oo dhan badankooda way u adkeysan kara waana frustrated waxa ku noqdeen gudoomiyaha iyo siyaasadiisa ay ku noqdeen ka tagay xisbiga muxuu dhaqaaqi laayay marka isaga hogaankii xisbiga hayee cid u baahan qiimaha ugu weyn lagu sameeyo ma isaga ahayn cidii aan la hadalnaa waxay leeyihiin da Faysal dartiib aan xisbiga u yimayn cid walba ay nagu leedahay aan aragna waxaan sameeynaa anagu marka dadkii faraha badnaa ee siyaasadda ee ku jiray meel gooniyan geynay oo xisbigaba kuma naasoo daray meel bay noo joogaan diyaar bay noo yihiin ya markaan campaign-kayga aan bilaabano ayaan isku soo daraynaayo campaign-kayga ka mid noqonayaan laakiin may jeclaan inay ka mid noqdaan hogaankaas laakiin inay campaign-ka ka mid noqdaan bay jecel yihiin dad fara badan oo siyaasi way marka adigu ma bilowday marka aad buuxiso jagadan kugu banaan ee kugu xigtay ma kaliya bay hawsha ku koobantay maya aniga kaliya dad badan bay la shaqeeya oo dad badan oo ayaa jira hatta xagga dambe igala shaqeeya oo wanaagsan oo aan xisbigan soo muujin xagga hore soo istaagin oo wali siyaasi waaweyn ay ku jiraan oo insha Allah xilligeeda
marka ay campaign-ku yimaado dee noo imanayo nala shaqaynayo xilligeedana dee waa taasina taladeeda waa laga wada yeelan doonaa dhamaystirka wixii qabyada ka ahaa xagga xisbiga hoggaanka iyo xagga musharaxiinta haddii taaba guntiga gabagabada barnaamijkeena maxaad leedahay gudaha bulshada Soomaaliya bulshada waxaan leeyahay guntiga gabagabada waxaan leeyahay war qaranka Soomaaliland inaan dalka dimuqraadiyad u horseedno ayaa laynaga doonayaa mudana daahir yaala kaahin waxa uu taariikhda ku galay oo lagu xasuustaa inuu yahay madaxweynaha 4 doorasho oo xor xalaa dalka ka sameeyay mudana daahir yaala inuu faragelin jirin xisbiyada mucaaradka inuu kala wiiqo hantidii ummadda lagu soo qaaday tamaandhada dadka carruurta laga soo islaamaha laga soo qaaday canshuurta laga soo qeeyay in dadkii mucaaradka lagu wiiqo daahir yaala muu isticmaali jirin xisb burburayna muu jirin ilaa intuu talada hayay isagu laakiin waxaad arkaysaa maanta madaxweyne Silaayana ceeb bay ku tahay xisbiga kulmiyana ceeb bay ku tahay ee talada haya in xilliga ay talada hayeen haddii ay laba xisbiyo waaweyn ay hawada ka baxaan ceeb bay ku tahay iyagana dimuqraadiyana ceeb bay ku tahay waxaan idin sheegayaa xisbiga wuxuu khilaafkiisan hadduu sii socdo khilaafkii ugu weynaa ee dalka soo mara ayuu noqonayaa Faysal Cali Waraab taariikhda wuxuu ku gelayaa ninkii xisbigiisa uu horseeday burbur 2 jeer maxkamad la isla galay haddana ka waantoobin dee arrimahan jira waxaan waa shuruuc cidna ma farmarsan karto cidna lama dhici karayo meel is xoogaya meesha sharci baa lagu kala baxayaa dadka haddii anigoo musharaxa oo golo dhaxeeyay ansixiyay oo hawsheedii watay oo ummadoo dhan igu weyd sidaa laygu samayn karayo qofka caadiga ah maxaa lagu sameynaya in maalin qaawin la weeraro anigu laakiin nin ogolaanaya ma waxaas oo dhan nin all the way la soconayaan oo aan ka daba haray tan noqonaysa xukuumadda aan ka daba harin iyo deegaan si gudoomiyaha sideedaba nin xaqiisa ka haray ma yihiin maalin sababta haddaan xaqayga ka haro ummadan sidana hogaamiye ugu noqonaya aniga xaqayga shan kar leh sidan iyaga laftigooda xaqooda ugu soo dhicinaya waxaan leeyahay taageerayaasha xisbiga intaas oo dhan soo joogay waa la joqojoqaynaya way jiraysaa in mar walba lagu dhibaateeyo waxaan doonaynaa wax xil weyn dalkan isbedel baynu ka doonaynaa dad badan oo aan jeclayn isbedelka baa jira oo doonaya iyo dad badan oo doonaya inay weeqaan dimuqraadiyadda dalka ha loo dhabaraadeeganaya laga niyad jabin yaana laga tegi ma leeyahay musharax taageerayaashuna hana la joogaan hana la dagaal galaan ilaa all the way tan soconayna aan hanka dimuqraadiyadda iyo dalkan halku doonaya intaan gaarsiinayno ayaan jecelahay inaan fariinta halkan uga diro anagu sacrifice badan baan soo sameynay idinkuna loo dhabaraadeega nala jooga dalkan isbedel rasmi ah ka sameeyno ayaan leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh guud ahaan madoorintaas waxay noogu dhamaaday barnaamijkan haladeegu hadaan oo kale aad ka daawataan telefishinka caalamiga ee Home Cable TV anagoo hadba ku soo xasuuno siyaasiyiinta aqooyahanka iyo waliba guud ahaanba waxgaradka Soomaaliland toddobaadkan barnaamijka haladeegu waxa marti uga soo wada daawateen ba musharaxa madaxweynaha ee xisbiga mucaaradka ah ee Ciid Mudane Jamaal Cali Xuseen oo naga mahadnaqay waqtigiisa qaaliga ah ugu horeyn wala qayb qaato barnaamijkan haladeeg waa sawir qaadidii editkii habeyntii iyo waliba isku dubaridkii Cali Ismaan Cali Maanoon iyo kuraasa barnaamijkan mid lamid ah intaan dib u kulmi doono waxaan diga tagnaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh aad baad mahadsantahay